soo furo Pixel Lab kadib iska delete garee qoraalkan dhexda yaala. waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas plus waxaad kasii dooranaysaa shape. marka shape-ka markaa soo qaadato radius-kan waxaad geynaysaa 20 gee. kadib dib ugu soo laabo text soo saar. waxaad tagaysaa qaybta ay qoran tahay size kadib cabirkiisa waxaad geynaysaa 17 gee isagana. markaad halkan joogto haddana dib u soo laabo waxaad tagaysaa qaybta color. marka color-kan button-ka marka aad furto qaybtan maahan qaybtan kale sii dooro. waxaan rabnaa color-ka in laba qayb aan ka dhigno. kadib calaamadan plus ku dhufo. calaamadan halkan ka muuqato markay halkan joogto waxaa color ku darmaya kaliya qaybtan. marka aad geyso qaybtan kale color-ka wuxuu ku darmaya qaybtan kore. marka qaybtan noo geey waxaad ku dhufanaysaa qaybtan color kadib color-kii aad rabto soo dooro. kadib position-kiisa iska habay color-ka. text soo saar ka soo laabo. saa u jeedid color-kii wuxuu ku badan yahay qaybtan hoose qaybta kore kuma badna. marka dib ugu soo laabo color-ka aad rabto soo saaro. marka haddii aan tagno dhinaca kale falaart aan geyno waxaan kusoo furaynaa color cagaar ah bal aan eegno isagana siduu noqonayo. saa u jeedid color-kii cagaarka qaybta kore ayuu u batay qaybta hoose waa mid gaduudkii hore aan kusoo darnay waay. marka color-dan hoos kaaga soo muuqda waa color hore aan usoo habeeyey. marka color walba aad soo habayso wuxuu imaan doonaa qaybtan hoose. marka aan hadda color-kan ayaan soo qaadanayaa. ku dhufo calaamadan plus kadib kasii dooro from gallery. waxaad soo qaadanaysaa icon-ka. icon-ka marka aad soo qaadato si aan ugu tirtirno background-ka cadaanka uu dhinacyada ka leeyahay waxaad tagaysaa qaybta ay qoran tahay remove background-ka tirtir. haddii uu ku tirmi waayo background-ka dhinacyada uu ka leeyahay waxaad ku dhufanaysaa calaamadan. kadib calaamadan halkan kaaga soo muuqata waxaad ku aadinaysaa qaybta aad rabto inaad tirtirto. kadib icon-ka cabirkiisa yarey waxaad tagaysaa qaybta size kadib cabirkiisa yarey. waxaad raadinaysaa qaybtan ay qoran tahay opacity. markaad tagto tiradan marka waxaad geynaysaa 70 gee. dib ugu soo laabo waxaad tagaysaa calaamadan plus ku dhufo qaybta text sii dooro. marka text-kan halkan ku yaala 2 jeer kale ku sii kadib waxaad ku qoranaysaa halkan qoraalka aad rabto mis magaca aad rabto kusoo qoro. markaad soo qorato soo qaad waxaad soo dhigaysaa halkan. kadib waxaad qaybtan ka raadinaysaa qaybta ay qoran tahay fontiskii kula qurux badnaada soo saaro. kadib dib u soo laabo waxaad tagaysaa calaamadaas waxaad kasii dooranaysaa qaybtan ay qoran tahay transparent. marka sawirka si aan ula soo degno waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas kadib waxaad kasii dooranaysaa save as image. marka qaybtan waxaad geynaysaa alter kuu saarnaato qaybtan kalena png kuu saarnaato si sawirka quality isagoo la gallery-gan u imaado. icon-nada kale ee kuu soo haray iyagana process-kan u mar. soo gal CapCut project cusub soo furo kadib waxaad soo qaadanaysaa background markaad soo qaadato size-kiisa waxaad geynaysaa 10 gee. kadib overlay tag waxaad soo qaadanaysaa saddexdii icon aan soo sameysanay. kadib cabirkooda iska habeey waxaad ka dhigaysaa qaabkan aan u sameynayo. kadib cabirkooda markaad habayso waxaad tagaysaa qaybta ugu horeyso keyframe ku qabo. keyframe koowaad ka fogow keyframe labaad ku qabo. keyframe koowaad iyo midka labaad space u dhexeeyo. marka keyframe-kii koowaad u soo laabo icon-ka waxaad gelinaysaa hoos geli. kuwa kale kuu soo horeyn waxaad ku sameyn doontaa isla process-kan. saa u jeedid icon-nada marka ay soo baxayaan iyagoo isa jir ayaa hal mar soo wada baxayaan. mar qaabka aan rabno qaabkan waxaan rabnaa marka ay soo baxayaan inay soo kala horeeyaan. marka si aan taas u sameyno waxaad sameynaysaa mid walba midka ka horeeya xoogaa gadaal uga celi si soo bixitaankooda u kala horeeyo. waxaad dul tagaysaa keyframe-kii koowaad keyframe-ka labaad midkii koowaad aan kusoo qabanay dul tag. kadib waxaad halkan ka raadinaysaa qaybta ay qoran tahay opacity kadib tiradeeda waxaad geynaysaa 0 gee. labada icon kale kuu soo horeyna qaabkan ku sameey. saddexda icon cabirkooda waxaad la ekeysiinaysaa background-ka kadib waxaad tagaysaa qaybta text waxaad kusoo qoranaysaa qoraalka aad rabto. qaybta fontiska tag fontiskii kula qurux badnaada soo saaro
haddana waxaad tagaysaa qaybta animation. Animation alaala midkii soo bixitaankiisa ku dhufci inaad soo dooro.